أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني هليلة إسلامك إلى المامين. برنامج كقيبتيسي هروحي مكوكا هذا يوسف بن تاشفين الله ونحرسته ودي بقول لعبتي ودنك مراكو كدب مركي يسوك على فرينتي جيريد ويكيسي عردان ايو كجيب من احتنامي ودنك وقويق أفريكا وانت إن شاء الله هكاس أيو نكسي أبقادي دونا. كسو دوادا مركي لي برنامج كيني دين كلا بحو وحن سؤال يوسف سيدا وعلى ومدي روكي وقويق أفريكا sida uga saahiday nolosha farxada dunida iyo waliba sida uu caawiyay muslimiinta Andalus. Hadaba intaas kadib wuxuu Maroko joogay muddo aad u kooban oo aan ka badnayn bilo ilaa ay soo gaadhay warqad kale oo sheegaysa in muslimiinta bariga Andalus sida magaalooyinka Ishbili ay haatan loo yaqaan Safila inay ku jiraan xadidaad ah in Kristaanku soo weerari karo waqti kasta. Sida ujeedkiisu wuxuu waraaqo u diray amiiradii magaalooyinka Andalus, waraaqdaas oo kaga dalbanayay inay caawiyaan oo cadawga ka dhiciyaan walaalahooda bariga Andalus. balse nasiib xumo amiiradaasi way ku gacan saydeen arrinkii Yuusuf ibn Tashfin Allah u naxariistee. markii howluhu halkaa marayaan ayaa waxaa isdabaabulay culimadii Andalus oo uu horkacayay imaamkii weynaa Imaam Baaji iyo culimadii kale, waxayna soo saareen fatwo ah inay kalsoonidii kala noqdeen amiiradii magaalooyinka Andalus. intaa kadib waxay wafdi u direen Yuusuf ibn Tashfin iyagoo ku sheegaya inay kalsoonidii kala noqdeen amiiradii magaalooyinkaas isla markaana diyaar u yihiin inay isaga bayco la galaan. haddaba markuu warkaasi soo gaadhay Yuusuf ibn Tashfin Allah u naxariistay lana kulmo wafdigii culimada reer Andalus soo dirsadeen, wuxuu ku dhaqaaqay tallaabo cajiib ah isagoo waraaq u diray amiiradii magaalooyinka Andalus inay ku soo biiraan oo u diyaargaroobaan jihaad lagu nadiifinayo bariga Andalus. balse nasiib xumo qaar ka mid ah ayaa diiday. Yuusufna wuxuu amar ku bixiyay in la weeraro oo la qabsado dhulka ay haystaan. kuwii ku soo biirayna wuxuu amar ku siiyay inay u diyaargaroobaan jihaad. حتى أميرتي كسر بريوس ابن تاشفين لين عيسى هي دحدة الخلافي اللي نوارك هوري وحقد حييني حنا بدأت الدعوة ودي خلاف كودي إلا ما قال كل سقر سيدي حنا ولا معاملين كريستان كا سلو بويها وشيوس ابن تاشفين أميرتي هنقول جود وحوها يعني هيستان حكم كوكلية وحنا كما يسنجل المسلمين تي لقبسني يا مسلكم هذه يوسف مركا وكور هلارين كهاليستا وبسيد أخصاه وكل أبت مراكو ما دام وودي وين هيجيسيا ممدي أميرتي Andalus. يوسف wuxuu bartay wadciga ama xaaladda guud ee Andalus intii uu joogay, wuxuuna sidoo kale bartay ducfiga ay leeyihiin amiiradii Andalus. sidaa awgeed Yuusuf wuxuu go'aansaday in laga takhaluso amiiradii madaxda ka ah magaalooyinka yaryar ee Andalus, sidoo kale inuu Andalus ka dhigo dal ku midaysan hal calan iyo hal dal. ujeedooyinka uu ka lahaa Yuusuf waxay ahaayeen ugu horeyn ilaalinta diinta Islaamka ee dhulka Andalus iyo ilaalinta nolosha dadka ku dhibaataysan magaalooyinka la qoosqoostay ee dowladaha laga kala dhigtay. ujeedada labaad ee Yuusuf ka lahaa waxay ahayd ujeedo istiraatiiji ah, taasoo macnaheedu yahay Kristaanku haddii ay ku guulaystaan oo la wada wareegaan dhulka Andalus waxa markaa halis ku jirta waqooyiga Afrika oo wax badan ka fogeyn Andalus oo halis ugu jirta Kristaanka inay damcaan. haddaba horaantii sanadka 483 Hijriyada oo ku beegan 1990 miilaadiga ayuu Yuusuf dib ugu soo tallaabay dhulkii Andalus isagoo damacsan sidaanu soo sheegnay inuu amiiradii ducafada dhulkaas ka xoreeyo. inta kadib waxaa lagu suurtageliyay in dhammaan amiiradii meesha laga saaro isla markaana uu muday dhulkii Andalus oo dhan muddo aad u kooban. dadkii muslimiinta Andalusna si wacan oo dhiiranayay u soo dhaweyn arrintaas. nadiifinta Yuusuf ibn Tashfin nadiifiyay dhulkii Andalus waxay dib u dhigtay ku dhawaad 400 sano ama 4 qarni inay Kristaanku damac ka galo dhulka Andalus. dhimashadii Yuusuf ibn Tashfin. صفحاتك بين أيادينا. bilowgii bishii Muharram taariikhdii hijriyadu markay ahayd 500 hijriyadii
ayuu dunida ka baxay mujaahidkii hogaamiyihii weynaa yuusuf ibnu taashfiin kadib 100 sano oo dagaal iyo cilmi u ahayd kadib markuu mideeyay dhammaan dhulka waqooyiga Afrika aynu soo xusnay sidoo kale dhulka la simay gaaladii iyo weliba dhinaca kale muslimiinta kursiga isku leen jirtay Andalus kadibna mideeyay oo ka dhigay dal ay ku midaysan hal calan iyo nabadgelyo buuxda haatan yuusuf ibnu taashfiin wuxuu ka aasan yahay dhulka Morocco ee waasalxan ka soo jeeday waxay intaas noogu dhan taariikh nololeedkii koobnaa ee yuusuf ibnu taashfiin allaha u naxariistee صفحاتك بين أيادينا أحداث تتحرك فينا صفحاتك بين سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان